السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan farxad weyn u ah in guriyihii kumeelgaarka maaha permanent maaha guryahan oo guryo muddadoodu ay kooban tahay 5 sano ugu badnaan ilaa 7 sano oo ujeedada laga leeyahay ay tahay dadkii ka soo barakacay abaaraha iyo dadkii magaalada laftigooda ku barakacay in intuba ay hooy helaan kaasoo ay ka dambayso inaanay dadkani aanay ku jirin guryaha yaryar ee teendhooyinka aanay ku jirin ay helaan kow marka hore dhul helaan oo ay bulshada kaga mid noqdaan deegaankii ka mid noqdaan laba ay helaan adeegyadii asaasiga ah saddex ay noqdaan guryahan bannad loo bedelo iyadoo la isku tashanayo oo qofka maanta waxa ugu qaalisan waa dhulka weey magaalada dhexdeeda dhulka markuu helo dabadeedna anaguna diyaar u nahay inaan caawino oo wax la qabano meel kasta aan uga doonay meel kasta aan ka baadi doonay inaan guryahaasi aan sawirka maanta leeyahay aanay yacni noqdaan guryo bannad si ay ubadkooda u helaan caafimaad ay u helaan waxbarasho ay u helaan biyo nadiifa ay noqdaan bulsho dadka la siman aanay noqonin bulsho dadka takooraan ay noqonin waxaan naqaanaa oo ku dadaalanaa mar kastaba dadka reer berbera ku nooli inay ahaadaan dad isku dhow oo aan dabaqadaan ahayn ama dhaqaaluhu kala saameeya aan ahayn marka ayuu saarad baan mahad celinaynaa waxaan ka rajaynaynaa insha allahu isbedelka dambe ee doonayna inaan barnaamij ka dhigno iyaguna inay nagala qayb qaataan dowlad hoose ahaan annaguna aan u diyaarino inaanu ka qayb qaadano sidii guryaha weliba waan dhiiri gelinaynaa dadkan ilaahay baa abuurtay qof walba ilaahay baa abuurtay risqiga buu leeyahay waa la kala dadaali karti badan yahay cid kastoo dadaasho isku dayda inay wax ka bedesho diyaarna in wax kala bedelno waxaan jecelahay in hal qodob uga faa'iidaysto qorshaheedu markii hore wuxuu ahaa 300 oo guri ama 300 oo teendho in loo dhiso oo hal mar dadka 300 ba maadaama bixiyaan si ku soo xulanay hal mar ay galaan laakiin laba Facebook laga noqday Facebook koowaad waa kan oo 150 Facebook labaadna 2 bilood ka bacdi baa la dhisay insha Allah waxa laga yaabaa inuu ka dhisay doonaado waxa laga yaabaa inuu ka wanaagsanaado waxa ilaahay baa og soo noqon doona laakiin waxaan ugu bishaareynaa dadkii aan soo xulnay kuwii guuleystay iyo kuwii aan guuleysanin labadaba kuwii guuleystay inay helayaan guriyihii kuwii aan guuleysanin inaan talaahay ka sokaysa ilaahay baa u maqan dadka laakiin sabab ilaahay cid sabab buu uga dhigaa anagu inaan u maqanahay waan u dadaalayno in kuwa maqanaya nasiibkooda aan maanta helin iyaguna maadaama baahidii hayno oo baahidii ogaanay oo inuu nahay dadka maanta ina sugayay guryaha magaalada inaan iyagana aan mudnaanta koowaad siino oo aan u baadi doono waxaan si ballan qaadaynaa mar walba ballan qaadaynaa waxaanu naqaanaa magaalooyinka kale dadkooda waxay geeyaan bannaanada waxay geeyaan meel aan adeeg lahayn meel aanay ka gaadheen bulshadii ka soo gaadheen mar walba waxaanu israacinaynaa inay magaaladu hal mid oo wada koraysa noqoto ninka taga bannaan haysta waxaanu uga qaadi doonaa danta guud halku hal qof ama 5 qof inaashanayso waxaan dejin doonaa 300 oo qoys ama 400 oo qoys markastoo ma helno adeegyada asaasiga aan helno waayo inagu nolol baynu rabnaa bulshada rabnaa babesha baynu rabnaa waxaan u baahanahay horumar baynu rabnaa uma baahnin dhul bannaan oo magaalada kala qaara oo kala xidhan u baahan waxaan ku soo koobayaa 5 guddo xaafadeed oo inoo joogaan hawl baynoo taala hawshaas iyo lisaar oo ballanqaad aan sameynay waxaan ballan qaadnay 100 ka tagaa guri ee imika dhisan inaanu 25 bisha ugu dambeyn dhamaystirayno oo dadka ku xareynayno dadka siinayno marka mar haddii 300 oo qof oo guuleystayaal ahayno mar kale inoo taala hadana in hadana la kala nasiib qaado waxaan rajaynaynaa inayna xulanin oo dhan kana miskiina kana tabaalaysan kana hebelay inayna oo dhan
markale santar walba gaarkiisa ama wadajir baynu qaban doonaa ama gaargaar baynu qaban doonaa iyadoo la is arkayo ayaynu soo afjaraynaa 156 nasiibkooda haddana siiyo ayaynu si fiican u rari doonaa waxaana uu kasii shaqeynay wadooyin rasmiyan oo bedeli doonaa biyihiina intaasaan gelin doonaa oo meel walba sidii biyaha ayaanu sii dhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxay nasiib u heleen inay helaan adeegyadii asaasiga oo maanta aan u baahnayn in haddana loo baadi doono caafimaadkii baa u yaalla waxbarashadii baa u taalla leerkii baa u yaalla biyihii baa u yaalla garoonadii kubadda carruurtu ku ciyaarayeen baa u yaalla wax kasta oo ay xaafadi leedahay bay leedahay marka insha allahu wixii beri ka bilaabma guddida iyo inaan haddana dib u kala xulanno oo aynu weliba mar kale waayo mar kastoo aynu cadaalad samayno waxaa ku jirta badbaadada nafteena iyo nolosheenna iyo badbaadada shacabkeenna ayaa ku jirta haddaynu cid kala jeclaysanno waa lagu caayi waa lagu aflagaadayn waa lagu dili laakiin innagu waxaan ku nabadgelaynaa inay dadku mid inoo yihiin inay dadku inoo saman yihiin qof kastaba nasiibkiisa gacantiisa ha eersada inta aduu ku eersan lahaa wabilaahi towfiiq waxaan leeyahay UNHCR waa mahadsantihiin madaxda sare ee UNHCR ee maraysa waxaan leenahay aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan rajaynaynaa wada shaqayn fiican baa UNHCR naga dhaxaysa inaan uga faa'iideyno bulshadeenna waxa iyo wax ka badan waxaan leenahay UNHCR wixii aan ugu aragteen ee ah inaan transparent ku shaqayno inay wax ayagu ahiin wax daahir yeeshanaysa oo aanan qarsanin oo inkaan leenahay ah in bulshadeedu guulaysato ujeedadaan leenahay waxa weeye ma anagu inaan wax ka helno ma inaan magac ku yeelano waa inay bulshadeedu guulaysataa wax kasta qof kasta oo findhici u qabanaya degmada reer Berbera iyo dadka reer Berbera iyo gobolka saaxiilba waxaan leenahay soo dhawaada aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh